shicibka dawladda Itoobiya ay xukunto waxaana kamid ah hadaladoodii anuu waxaan ka hadlayaa qodobo yar oo kooban horta annagu safaryadan cidii ku nooleeday saaq baan nahay meel kasta aanu deganaano oo kala joogno ama aanu isku dhawaano ama aanu kala fogaano cidii gacan aan ka aqdar safarta ugu soo fiiqdo waan annaguna taayaduna way saarantay maanta nala dagi maayo awal hore waanu kala jeednay waanu hurdnay maanta laakiin waanu toosnay ayagaan waabanu ducaynaynayo maanta waaba isku haya dareenba maanta godololo ay naga heli kartaan ma jirto ha ku soo luguyna in aanu gumaysataan oo halka doontaan tilahan halkan annaga le ka kaca oo gubtaan oo maatida iyo caruurta iyo roolaha ayaan u kala bayeelin oo laysaan oo xasuuqdaan dib annagu ku dul qaadan mayno waxa weeyaan annagu waxaan nahay deegaankii iskoyska dadkii shacabka ahaa baan nahay hubkaygii baan naga la soo baxnay cid kasta ha noqoto ciddii cadowgahe annaga nagu soo duusha naga faa'iidi mayso waanu iska celinayna calanka federaalkana waan hoos taagnay annagu haddii aanu nahay beesha iskoyska ee cidagala weyne meelka ee garxajis ee baharab yaanu nahay walaalahayo haddii ay ku soo duulaan ka gacan laan mayno haddii annaga nagu soo duulaanna ka gacan laan maayo kayga bari jooga iyo ka waqooyi jooga iyo ka galbeed jooga waan wada joognaa saacaday dhacdo saaq reesha saaq waan wada joognaa annaga shaarkii dawladda in loo adeegsado oo lagu gumaysto oo wixii la doonana laga yeelo ma yeelayno annagu federaalka waxaan ahayn oo ka amar qaadanayno ma jirto ninka maanta bariis iib geynaya bariis ee ogaadeen meel uu ka quudiyo daydeeya anigana uu meydkayga dibadda yaalo waxaanu ku heshiinaynaa maxay tahay waa xabadda ogaadeen soo raac ku dheh ka bariiska iib geynaya ina cagjar hubka ka soo qaadadho annaga naga soo horjeedsadhe hadal kale oo naga dhaxeeya ma jiro reer sheekh saxaaq waa mid walaagar xajis baanay kala ahayn arab baanay kala ahayn awal baanay kala ahayn habar jeclaanay kala ahayn waa mid miiqduna sida tusbaxana taxa ma garatay waanu go'aan baanu qaadanay kuma sugaynaa haddaadna geli weyday waliba annaga ku geli ninka wax qarqarinaya ee kolbale halkuu gaadhigayga isjiidkii maraa anigana meydkayga iyo aqoontiis dul yaallaan waxaanu ku heshiinaynaa wanaageen naga dhaxeeya muxuu yahay bal sheega nimayow malaa waa hurudaane aadhe guryana waa laga barooranaya ninna bariis buu iib geynaya ma garatay 150 nin ayaa aakhira jira waxna meydkoodii waa laas waxna lama aas waa wada reer sheekh saxaaq waxay galabsadeen ma jirto guryahoodii baa la gubay hantidoodii baa la gubay waa lagu soo duulay dhulkoodii baa la leeyahay ha laga qaado oo ha ka kacaan waxaanu ka dooranay geeri taa geeri baanu ka dooranoo ka xignaa ninkii doonaya raaxo aadhe ina cagtar soo raacday annaga ku abaahiye walaa suldaan baanan anigu aqoon walaa hooyadii wasaanan aqoon walaa warnaga aamu meydkayagii buu ku dul ciyaarayaa annaga kuwa siiye soo raacday bahashi annagu waxaanu nahay dawladda Itoobiya Soomaalida taalla Safaria qabiilada la yiraahdo reer sheekh saxaaq waxaanu xukuumad wada lahayn kilalka shanaad la yiraahdo nimanka la yiraahdo ogaadeen ee beesha daarood waxay dagaal ka soo abaabuleen ku socda Somaliland magaalada la yiraahdo magaalada madaxda jigjiga waxay weerareen Somaliland imakana waxay u soo jeedsadeen oo dagaalkii ka bilaabeen degmada Harshin iyo degmada Daroor oo ka tirsanayd kilalka shanaad saacada laga bilaabo
annaku ma nihin kilal shanaad kilalka lixaad baanu waxaanu nahay dawladda Itoobiya federaalka ayaanu ka amar qaadanaa oo na xukunta cid kale oo aanu ka amar qaadanaynaa ma jirto waxa la dilay 150 dumar iyo caruur iyo odayaal waaweyn iyo dhalinyaro iyo odayba leh rag xoog lahaaba leh shir baana loogu qabtay magaalada Dacwaley waxa la yiri shir baa jira oo nabadgelyo la qaadaya marka hore waxa la soo jeexay xad beelaha iyagii iyo dhulkii aanu deganayna deegaanka aanu lahayn ee kilalka shanaad aanu kaga mid ahayn ee Itoobiya aanu ku lahayn ayaa la yiri wadaan la marinaya xada laba dawladood xad loo kala sameeyo mooyade meel taalo ama laba beelood xad loo kala sameeyo ma jirto shacabkii Itoobiya iyo ciidankii qaranka ee Itoobiya oo ay la socdaan ciidamadii new booliska la oran jiray la lahaa waa la kala diray ogaadeen laba kolba shaar uu soo gashadaa wuxuu shaar u soo gashaday uu shaarkii dawladda u soo gashaday uu soo qaatay darajadii dawladda oo hubkii dawladda Itoobiya uu soo qaatay shacabkii Itoobiya yaalay ee uu isagu xukumayay waxa dhaawaca kumayaal maati iyo in xoog iyo odayaalba isugu jira iyo wax garab shirkii markii loo soo fadhiistay loo gogol xaaday isagoo shirkii Itoobiya loo gogol xaadayo ayuu xasuuq salaad hore bilaabay waxa weeye dagaalkii laga bilaabay daaroodiyada ahaa ayaa laascaanood lagu galay ayaa maantana kilalkii Itoobiya anagoo reer Sheekh Saxaaqna lagu bilaabay reer Sheekh Saxaaq 8 reer Sheekh Saxaaq way ka midaysan yihiin ama Itoobiya hayaalaan ama Yurub iyo Ameerika ha joogaani waanu u midaysanay inaanu wax iska celino ku shahiidno nimanka daaroodiyada ee ogaadeeniyada ee dawladda aan wada lahayn ee Itoobiyaanka wada lahayn ee xasuuqa nacasnimada iyo dhulboobka noola yimi iyo in dilka xasuuqa ee noo adeegsay dawladda waanu iska celinaynaa waanu ku shahiidaynaa magaalooyinkayagii baa la gubay dhulka ma haysano dhiig aanu ka hayno iyo in waxay nagu aan waxyeelaan u geysana ma jirto laba beelood baanu ahayn oo wada yaala oo dhinac isku haya oo isdhalay oo isku in ehla oo jaara oo dawladda wada leh shacabkii reer cali faqagaal ayaa iyo reer Haaruun ayaa gubayay magaalada lagu yiraahdo Dacwaley difaac baanu kaga jiraa ilaa min galbeed ilaa min bari reer Sheekh Saxaaq baana la yiraahdaa isku mid baanu nay waanu iska celinaa sidaanu isaga celin jiray baanu isaga celinaynaa waxna soo dhex maraana ma jiro ma wixii waxaana wax nagu dhex jiray hore nagu dhex jiray ma laynayno gobaanu nay waxa maganta noocaana ma laynayno gobaanu nay waxaanu qabanana ma laynayno gobaanu nay ma naqaan anagu caadada iyo dhaqan xumada waxa naloo sheegay ciidankii ka tirsanaa ciidamada ka tirsanaa Itoobiyaanka inay laayeen oo ay rag aynad ahaan u laayeen oo iyo caana lagu laayay oo imaka la yiri dagaalka hadaad gali weyday waxa reer Sheekh Saxaaq kuwa dir oo dir baatay oo reer Sheekh Saxaaq baatay oo ragiyaan doonaynay baato dagaalka kale dagaalkii gali weyday waanu la diisaa lagu dilay qaar imaka xidhan waxaan ognahay in dawladda Itoobiya iyo calankii Itoobiya aanu lahayn aanu hoos joognay naloo adeegsanayo annagu meel kale kama naaniman meel kale la tagi mayno alqaacida ma nihin al-shabaabna ma nihin waxaanu nahay reer iskoys abakar muusaanu nahay ayaanu nahay arabna male argagixisa naguma dhex jirto waxa aanu ka dhageysanayna hadal ee hor iman kara waxa weeyaan federaalka dawladda Itoobiya kaliya iyo muslimiinta caalamka iyo Soomaalida kale ee ka baxsan ogaadeen xasuuq baa dhacay cid waliba wogtay caalamka og new boolice baa la sheegay new boolice allagu uma naan aqoon waligeeyba waa oo elafti oo dureysna loogu xilay ma jira wax deegaankaaga kamida ama deegaanada reer Sheekh Saxaaq deegaano new boolice ka tirsan wallahi iba qaar ku tirtiray wallahi iba oo Sheekh Saxaaq ahaan baa loo laayay qaarna xabsiyay ku rideen kuwa daayo masaajidadii dhiigu rogmaday ummadii iyo culimadii masaajidka Dacwaley gashay qof waliba uu ogeysidii loo laayo loo xasuuqay cid aanu la nabdaynaana ma jirto ciidana lama hoosaasinayso
kuwan reer guuleedee weligoodba ciidagala jabin jiray ayaa in raashina u qaadaya ma soconayso wax nabadii ma jirayso nabaddu federaalka ayuun baanu ka heshin karnaa wadahadal dawladda dalkale iyo waddada cad annagaa leh ciidan baanu u dirnay way xidhantay saacaddaa laga bilaabo waannu goynay cidda soo martaana iyadaa ka sheekeen waa dembiile waxaan xabad ahayna la dhici mayna cidday doonta ha ahaatee ilaahayn baanu naqaannaa jabhaddan oo elef waxaa ka horreeyey jabhado badan oo hore ay leeyihin ogaadeen ilaa ina cabdilla xasan cali jaamac haabiil wuxuu yidhi gaal maxasta kuu dhowrood magasataa dhaama war federaalkaasaannu annagu walaalannay oonu wax la leennay oo cashuurtayada aannu siinaynaa waxaa ku xigta jabhad duufaan laydhaa markay reer sheekh isaxaaq soo faragelisay unbay iyaduna halkii ku dantay tanaa timi oo elef fartaa magaaladaa aynu joogno ayay ku leynaysa carruurta waa macruuf laba carruuroo isxambaarsanoo 6 jir iyo 4 jira waxa weeyaan iminka 20 sannuunbay xabaddaasi lagu socotay dad nabadda jecel baanu leh annagu haddaannu reer sheekh isaxaaqnay cidna kuma duullo ilaa sheekh isaxaaq baa markuu soo degaa rasaas la dhicin ogaadeen